Maxamed Nuur wuxuu ka mid ahaa 30 jirkii derbiga la jiiftay jacaylkii ay ku qiyaamtay gabar Soomaaliya, isla markaana uu u doontay lacagtii uu ku doonan lahaa. Laakiin dunida kamaysan dhammaanin dad dareen iyo damqasho leh. 30 sano ku dhowaad ayuu iridda hore ee bannaanka maxkamad dhowr iyo 10 sano ka hor burburtay hortiisa jiifay. Fadlan daawada nagu casuum subscribe iyo like. Maxamed Cabdi Nuur horaantii ayaa warbixintiisa laga soo tabiyay magaalada Kismaayo, wuxuuse ahaa midkii ay asiibtay jacaylkii muddada dheer ee gabadha ay ku qiyaamtay. Tan iyo 30 sano jirkiisa, hadda uu jiro 60 iyo dhowr sano. Laakiin maanta way kaga duwan tahay maalmaha nolosha markii loo sameeyo daryeel. Aadamaha lagama waayo kuwo damqasho leh, bini'aadamkase waxaa ku jiro kuwo aad u wanaagsan oo dareenka iyo dadnimadu ay ku weyn tahay. Maxamed Cabdi Nuur warbixintiisa markii la tabiyay waxa uu helay xanaaneyn badan. Muddo badan kadib iyo usbuucyo kadib, waxaa la arkay Maxamed Cabdi Nuur oo dhimirkiisa soo laabtay, isla markaana akhrinaya Qur'aanka Kariimka. Dadka oo dhan aad ayay ugu farxeen markii ay arkeen. Xilligii hore wuxuu ahaa mid tintiisa ay ka sii deganaysay qaybta dambe ee dhabarka, maadaama uu waayay cid daryeesho, isla markaana eheladii iyo dadkii ula jooga qaarkood ay ku dayriyeen waalida. Maxamed Cabdi Nuur hadda wuxuu akhrinayaa Qur'aanka Kariimka, waana 30 jirkii eebsaday gabar uu aad u jeclaa, xilli uu hadda jiro 62 sano jir. Hoteelka la geeyay iyo sidoo kale goobtii xanaanada ee lagu xanaaneynayay, hadda waxa uu ku bartay Qur'aanka Kariimka. Maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa soo laabtay dhimirkiisa. Salaada ayuu u dukadaa si tartiib tartiiba. Dhar qurux badan ayaa loo geliyay, cunada waa laga fekeraa. Noloshiisana hadda waxay tahay mid wanaagsan oo hadda dadka ayuu la sheekeysanayaa. Maalmaha qaar waxaa loo wadaa bannaanka hore ee Kismaayo si loogu soo dalxiisiyo, gaari halkaasi lagu qaado, isla markaana waa lala soo sheekeystaa. Xaaladdu waa hadda mid soo hagaagayso. Dadka Soomaaliyeed ayaase aad ugu farxeen tan iyo markii laga soo saaray xaaladii mugdiga ahayd. Welise aadamuhu waxaa ku jira kuwo damiir iyo damqasho leh. Fadlan muuqaalkan subscribe saar oo like saar haddii aad jeceshahay dareenka Maxamed, 30 jirkii 60 sano ku gaaray dhimirka, isla markaana hadda helay maskaxdiisa oo dhammaystiran iyo dad u istaaga. Shalay waxay ahayd xaalad adag, laakiin maanta way kaga duwan tahay xaaladda.